Bibuan primary school ma la furin. Schoolkaas waxaa jooga macallimiin addoon ah lix qof ah meesha ka shaqaysa. Lixda macallin waxay dhaheen schoolkaas aniga ma tagayn because meesha waxaa fadhi ciidan oon ciidan Kenya ahayn meesha noo fadhi. waxaan fariin u dirayaa Senator Mandera, my party leader. waxaan fariin u dirayaa women MP. waxaan fariin u dirayaa MP Mandera East. daraad markuu Gachagua ka hadlay al-shabaab way soo wala boodeen nin walba waa u majiibi. waxaa loo majiibayaa because Ruto ayaa la ismaqashiin rabaa. Your Excellency, leaders Mandera Israadi. dhibka Mandera saaran dhib weyn soo socda. hadda laga hortag waa in dhibkeeda ay leedahay. reer Bibiwan barkac baa ku dhacay. buuladaas waa loogu soo guuri. shalay magaalada waxaa ka dhacday 10 qof oo KCP u fadhiisan rabo KCC u fadhiisan rabo oo ilmo fonfo ah in ciidanka Jubbaland laga qoray. oo inta laga orday oo laga daba tagay ilmihii laga soo reebay. Your Excellency, meeshan waxay noqotay training ground oo lagu dul rab Soomaali. anaga dhib Soomaali oo isku haayaan dhibkeyn maaha. laakiin haddaba ay dhib rabaan magaalada noogu baxaan meeshooda ku dagaaltamaan. si daraata marka Gachagua oo ka hadlay Mandera looga hadlay waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta Mandera laga soo doortay kor ilaa hoos inay isu yimaadaan oo ay ka hadlaan dhibkan reer Mandera hay. warbaashan hadda la soo tuur guriga Faisal ay ku dhici kartaa, gurigaada ay ku dhici kartaa, guri ay ku dhici karin malaha. ummadan badbaadiya idinkaa liin soo doortay. ummadan haloo halla wixii maanta ka bilowd nin hal waay Allah lin reer Mandera waayo wax kale oo ku haysataa malaha. nin mishaar sina malaha. nin mishaarkiis waxay kugu dara malaha. laakiin markaad dhib qabtaan waa in laga hadlaa. marka mas'uuliyiinta fariinaan u dirni nin maanta in la hadlo waay idinkan bari alla hadlina dhaarta dhibaataysan tahay qofka kuliis taag waay dhaartu dhibaataysan dhibaatadiisa la fiirinin. wixii maanta Mandera ka dhacay hadda ahaan leed wax qabiil isu fiirina nin walba diyaaradu soo qaadan lahay Mandera iskuul joog lahay maanta. laakiin maadaama ay qabiil fiirinaynin oo reer Mandera isku xiran ay fiirinays hal qof oo reer Mandera oo Allah malaha. war 400 oo qof oo meel banaan la keenay oo beeraha ku caarayaan oo musqulaan lahayn dhibkay Mandera u geysanayaan ka weyn. Your Excellency, wiilka ka shaqeynay mashiinta BB1 oo habeenkii BB1 bi u soo dayn lahay meeshaas ma aad kar waxaa soo aad karin ciidana meesh fadhi ma faadimo baray ma dhiman lahayn. hadday mas'uuliyiinta reer Mandera ay ka hadli lahayn dhibka Mandera haysta. gabarta yar oo 14 jir ah oo maanta isbitaal jiifta Nairobi isbitaal ma la geyn lahayn. dhibkii waa dhacay dowladda fiirin ma laha. hadda isbitaalka BB1 daawadii yareed oo isbitaalka dad BB1 loogu targalay waxaa arugsanay dadkaas arugsanay waa nin qori hayst hadduu ninka meesha joogaas daawo diidan rasaas baa lagu dhufani. war niman ayagoo raashin loo karinay qisada ugu weynaad oo meesha ka dhacdo waxaa raashin baa la karinay. ninaa 6 saac bar uu soo kacay hilibkii oo dabka saarnaa rasaas ku furi. waxaa la maxaad u samays waxaa la waa gaajaysan yahay. war nin raashin dab furan noocaas u sameey nin takhtar oo meesha jooga daawadiid ma ka badbaaday. Your Excellency, waan hadalnay reer Mandera ahaan u hadalnay nala istaaga waxa naga rido. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.